daawadayaal ku soo dhawaada saxafi filim su'aalaha bay idinla wadaagta dhacdooyinka aynu kaga hadalno aktarada shirkadda Hollywood-ka ka howlgala ee dalkaasi Hindiya. daawadayaal barnaamijkan waxaynu kaga hadli doonaa aktarada caanka ah ee Tabu waxa ay ka mid tahay atirishooyinka ka howlgala shirkadda Hollywood-ka iyo dhammaanba shirkadaha South Indian Film Industries ee dalkaasi Hindiya. waxa ayna ka mid ahayd atirishooyinka ugu caansanaa bilowgii sagaashamaadkii. haddaba atirishadan ayaa waxa ay sheegtay in ay ka mid ahayd dadkii sanadku markuu ahaa 1998 uu jilaaga caanka ah ee Salman u raacay ugaarsiga aadayna meel baadiya oo u dhow tuulada lagu magacaabo Kankani Village. waxa ay sheegtay in ay maalintaas aad u jeclayd in ay wax toogato ama ay shiishto, balse waxa ay tiri nasiib xumo aawadeed oo aniga ay qabsatay. waxa ay tiri marnaba shiish lama aanan helin bay tiri ugaarti meeshaasi daaqaysay. waxaan jeclaa bay tiri in aan mid ama laba iyo ka badanba oo deerooyinkii meesha joogay ka mid ah aan toogto oo aan shiishka la helo, balse waxa ay tiri markasta oo aan isku dayo in aan xabad ka mid ah deerooyinkaasi aan dilo waa aan la seerinayay shiishka maadaama aanan ku wanaagsanayn bay tiri dhanka shiishka. haddaba waxa ay tiri jilaaga caanka ah ee Salman oo waqtigaasi nala socday inaga oo damaashaad u tagnay bay tiri iyo maalin joog waxa uu ka mid ahaa bay tiri dadkii ugaarti meeshaasi joogtay hal ama laba ka toogtay. aadna maalintaasi waa u faraxsanaa, balse aniga murugo ayay ii ahayd aniga oo ka xanaaqsanaa bay tiri Tabu shiishka Salman iyo qaabka uu markaasi u tooganayay. ugu dambeynna waxa uu ku daray bay tiri polo oo aad garanaysaan oo ah bay tiri baalaley. markaasi ayay waxay nagu sii noqotay bay tiri fajiciso. haddaba waxa ay sheegtay atirishadan Tabu markii kiiskaasi la isu qabsaday oo eedeymaha ay soo baxeen in meeshaasi ugaar badan lagu laayay, waxa ay sheekadii isu bedeshay maxaa inoo geystay. haddaba aktaradan waxa ay sheegtay in jeelka loo geystay oo lagu xiray bay tiri jilaaga caanka ah ee Salman in ay aad uga xun tahay. waxa ay tiri ma fiicna in shakhsiga xorriyadiisa laga qaado. waxa ay tiri shakhsi kasta dooq ayuu leeyahay iyo hobby. haddii jilaaga caanka ah ee Salman hobbigiisa ama dabeecadiisa ay noqotay in uu toogto bay tiri ugaarta ama xayawaanaadka, taasi mararka qaar waxaad moodaa in aad ku xadgudbayso shakhsiga iyo hobbigiisa. waa ay dhici kartaa bay tiri in ugaartan duurka joogtaa xuquuqdooda la ilaaliyo, balse maahan bay tiri in qof muctarif oo caan ah oo jilaayaasha dunida ugu caansan ama dalkeena India ka mid ah in xuquuqdiisa laga qaado oo lagu tilmaamo in uu dambi galay kadibna jeelka loo taxaabo. haddaba gabdho badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka mid yihiin maanta gabdho shiishkooda marka la eego amaba gabdhaha dunida jooga loo fiiriyo ka shiish wanaagsan. qaar waxa ayba yihiinba shiish intay ka tageen gaandhari oo qoryaha waaweyn ayay wax ku toogtaan. Soomaaliduna waxayba u taqaanaa waa fara toogtayaal oo haddii xitaa aad farta kor u taagto faraha ayay kaaga jarayaan iyada oo qoriga aadka u weyn ee marka aad eegto in aad wax ku shiishto xitaa ay kugu adkaanayso. haddaba daawadayaal barnaamijka aynu kaga hadlaynay atirishada caanka ah ee Tabu oo ka mid ah atirishooyinka shirkadda Hollywood-ka ka howlgala una sheegtay Salman in ay aad uga xun tahay xariga loo geystay iyo xorriyadiisa in laga qaado, haddana ay ku faraxsan tahay in jilaagan uu mar kale dib u helo xorriyadiisii kadib markii laga sii daayay xabsiga uu ku xirnaa. haddaba daawadayaal barnaamijka intaas ayaan kusoo afmeeraya. halka aad barnaamijka ka daawanayseen waa saxafi filim su'aalaha baad ka dhaataan dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee aynu kaga hadalno aktarada shirkadda Hollywood-ka ee dalkaasi Hindiya. waxaa barnaamijka idin daadinaya anigoo Caaqil Cabdi Faarax. haddaba haddii aadan ka mid ahayn baada ku xiran saxafi films, fadlan isku day inaad subscribe saarto kadibna aad gambareel ka taabato si barnaamijyada markii hawada soo galaan bay si toos ah kuugu soo dhacaan. fikirkaagana waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta comments-ka ee saxafi films. inagoo isku duuban oo apaada saxafina waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.